الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوادا halkani waa macalin abqari youtube aniguna waa Ustad Maxamed Samatar Ustad Abqari aad baan u soo dhaweynayaa bulshada kala duwan ardada Soomaaliyeed ee ku tixan channelkan macalin abqari youtube inta nagu tixan oo sida joogtada ula socota casharada waxaan ka codsanaynaa insha Allah inay si lamid ah aad maaragtay share iyo like ugu dadaalaan si bulshada kale aad ku danaynaysa uu gaaro insha Allah waxaan maanta insha Allah aan idin wadnaa casharkii buuggii koowaad 4000 social Englishka ahaa unitkii 21aad waxaan soo qaadanay party A big A-diisa maanta waxaan qaadanaynaa party B casharka tobankii ereyba hal casharaan ka dhignay markii hore wuxuu inoo ahaa 20 ereyba hal casharaan soo wada gelinaynay marka laakiin si aan u kala fududeyno ardaduna maaragtay video isugu dheeraan ayaan ugu talagalnay marka inaan 10 erey u siino marka sidaasaan marka unitka A iyo B maaragtay uu noqday soo dhawaada haddaba marka unitka intaanan u gelin sharaxaadiisa insha Allah aynu dhageysano markaynu dhageysanana insha Allah aynu sharaxno buugga koowaad loo yaqaano buugta 6 serialka loo yaqaano 4000 essential English wordska oo buugta xanaa kana kooban 6 buug sidoo kale waxaan ku bixinaa buugtaas oo dhameystiran buug walbana wuxuu ka kooban yahay 30 unit waxaan buugtaas oo si guud ku bixinaa Abqari Online Academy casharada luuqada Englishka ay ka socda ayaad ku helaysaan khidmad aad u yar buugto dhameystiran waqti kooban oo yarna halka YouTube-ka muddo dheer ay ku qaadanayso inaad buugtan ku wada hesho laakiin waxaad helaysaa koorso buugtaas oo kaligood ah buugtana heerar kala duwan oo u dhigma ilaa dugsi sare high school ka soo bilaab ilaa heer jaamacadeed ilaa business level kala duwan ay ka kooban yahay ereyaduna waa ereyo maaragtay basically loogu talagalay in ardayga meel walba uga dhismo marka insha Allah aynu la socono balse intaanan sharaxaada gelin aynu dhageysano insha Allah inform ayuu nooga bilaabanaya oo ereygii hore I hurried home on my bike. inform ka bilaabanaya To inform someone is to tell them about something. I called and informed her about my idea. Later. Later means after the present, expected or usual time. She missed the train, so she'll arrive a little later than expected. Leave. To leave means to go away from someone or something. He packed his bag and was ready to leave for home. Locate. To locate something is to find it. I could not locate my keys in the house. Nurse. A nurse is a person who helps sick people in the hospital. A nurse helped me get better. Operation. An operation is when a doctor replaces or removes something in the body. The operation on my arm was a success. Pain. Pain is the feeling that you have when you are hurt. His hand was full of pain. Refuse. To refuse something is to say no to it. The dog refused to play with the cat. Though. Though is used when the second idea makes the first seem surprising. Though he was overweight, he liked to be active. Various. If something is various, there are many types of it. She owned shoes of various styles. inta ay noogu dhan dhageysashada unitkii book koowaad unitkii 21aad party B
ereyga ugu horeeya inform waa wargelin waay. To inform someone inaad qof wargeliso is to tell them waa inaad iyaga u sheegto about something wax. I called and informed her about my idea. I called waan wacay and informed her waxaana wargeliyay iyada about my idea. Waxaan anigu fikirkaygii ayaan u sheegay oo ku wargeliyay. Ereyga xiga later waa goor dambe. Later means macnaheedu waxay tahay after the present waqtigan la joogo kadib ama expected waqtiga la filayo ama usual time waqtiga caadiga ah. She missed the train. Trainkii way weysay. So she'll arrive a little waa la yidhaahdaa a little later than expected. Wax yar kadib waqtiga la filanayay ayay imaan doontaa. Trainkiina wuu ka tegay. Ereyga leave waa bixid ama isaga tegid goob ama qof. To leave means waxa waaye to go away from someone or something. Inaad meel isaga tagto ama qof aad ka tagto. He packed his bag. Wuxuu xirxirtay ama alaabtiisa gashtay boorsadiisii and was ready to leave for home. Wuxuuna diyaar u ahaa inuu isaga tago guriga. Ereyga xiga waa locate. Goobna way noqonaysaa laakiin hadda verb waaye waa location maahane waa verb waa raadin. To locate something inaad wax locate garayso is to find it waa inaad heshid. I couldn't locate my keys. Ma aanan heli karin furayaashaydii in the house guriga gudihiisa waan ka waayay macna. Ereyga nurse waa kalkaaliye ama kalkaaliso. A nurse is a person waa shakhsi who helps sick people. Taasoo ama kaasoo caawiya ama taasoo caawisa sick people dadka xanuunsan in the hospital isbitaal ku jira. Whodaas waxaa la yidhaahdaa waxaa jira sharciga luuqad lagu yidhaahdo relative close ama relative pronoun. Marka a nurse is a person who helps sick people in the hospital. A nurse helped me get better. Baro ama better. Kalkaalisadu ama kalkaaliyuhu wuxuu iga caawiyay inaan yara bogsoodo daawooyin iyo wax uu siiyay ama siisay. Operation waa qaliin. An operation is when qaliinku waa goorta a doctor replaces dhakhtarku uu bedelo or removes ama uu bixiyo something in a body jirka ka saaro ama uu ka bedelo wax kale ku bedelo ama uu ka saaraba. The operation on my hand qaliinkii gacanteeda was a success wuxuu ahaa mid guulaystay ama guula. Ereyga xiga pain waa xumad ama qandho waaye. Ereyga pain waa qandho ama xumad. A pain is a feeling. Xumadu ama qandhadu waa dareen that you have aad leedahay ama qabto when you are hurt markaad daawacanto ama xanuun ku gaaro. His head was full of pain. Macnaha madaxa aad u xanuunayay. Qandha ka buuxda madaxiisa macnaha waaye qandha ayaa haysay madaxa ka haysay. Ereyga refuse waa diidid. No inaad tiraahdo maya. To refuse something inaad wax diido is to say no to it waa inaad tiraahdo maya ma sameynayo ma yeelayo diidid waa. The dog eegu refuse wuxuu diiday to play with the cat inuu bisada la ciyaara ayuu diiday. Ereyga xiga though iyo although iyo even though waa isku mid oo waa conjunction. Waliba conjunctionkaas waxaa loo isticmaalaa conjunctionada saddexa loo qaybiyaa. Qolo la yidhaahdo correlative conjunction, qolo la yidhaahdo coordinating conjunctions, qolo la yidhaahdo subordinate conjunction. Kuwa marka waa subordinate conjunctions. Conjunctionada jumladaha waxaa loo qaybiyaa afar loo qaybiyaa. Marka hore laba loo qaybshaa jumladaha. By function iyo by structure loo qaybiyaa. Qaybta grammarka aan bixinaa si fiican loogu bartaa. Qaybta Abqari Online Academy cidii danaynaysa koorsooyinka Englishka ka socda. Marka conjunctionada saddexaas loo qaybshaa correlative conjunction, coordinating conjunction iyo subordinate conjunction. Marka though iyo even though iyo if iyo kuwaas waxaa la yidhaahdaa subordinate conjunctions. Conjunctionadas waxay sameeyaan jumlooyinka loo yaqaano complex sentences. Jumlooyinka laba loo qaybshaa by function iyo by structure loo qaybiyaa. By function waxaa lagala jeedaa jumlada markay tahay simple sentence, compound sentence, complex sentence iyo compound complex sentence. Jumlada by structure waa taas. By function waxaa la jumlada marka loo qaybinayo afar. Declarative sentence, interrogative sentence,
imperative sentence and exclamatory sentence. marka laba qayba loo qaybshaa si guud jumladaha qolada by function la yiraahdo qolada by structure la yiraahdo. marka though inkastoo used waxaa loo isticmaalaa when second idea marka ideyada labaad makes the first seem surprising ay ka dhigayso midii hore mid la yaab leh. tusaale hebel shuluq waaye haddana dadka waa ka orod badan yahay. waxaan rabaa marka inaan gelsho although Ali is very fat, waliba xoogaa fatka waa lama isticmaalay standard ahaan waxaa la isticmaalaa overweight oo kale la isticmaalaa. marka although Ali was overweight, inkastoo calihe miisaankiisa ay ahaa, he can run as faster than you can. orodka kaa dheereeya macnaha. although he is used when the second idea makes the first waa inkastoo. although he was overweight, inkastoo shuluq ahaa, he liked to be active. wuxuu jeclaa mar walba inuu noqdo mid firfircoon. ereyga xiga virus waa kala duwan waa. if something is virus, there are many types of it. noocyo badan ayaa ku jira. she owned shoes of virus styles. waxay lahayd own waa lahaansho, waa haysasho, baasihan laga dhigo idiya lagu daray. waxay lahayd shoes kabo of virus styles, style ama naqshado kala duwan loo sameeyey. kaba ka badan oo kaba kala duwan oo naqshado kala duwan la ayay lahayd. halkani waa Macallin Abqari YouTube channel. kusoo dhawaada fadlan. waxaan aad kaga rajaynaynaa inaad aad noo dhiirigelisaan si channelka aad maaragtay insha allah meel fiican aad inoogu geysaan. channelka haddee wuxuu marayo kama hadlayno, meeshuu marayo waa isla arkaynaa, waan isla ognahay. marka inaad kor u qaadaan oo hadda maaragtay tusaale waaba kanaaba wuxuu marayaa 885 waaye. marka kuwan casharada ku jira aaday u badan yihiin. insha allah waana soo dardargelin doonaa. idinkuna si aad noo dhiirigelisaan fadlan kana faa'ideysta, bulshada kalena u faa'iideeyo, laagta iyo shaarta ku dadaala insha allah haddii ilaahay yiraahdo. aad baan idin salaamayaa. waa Macallin Abqari leh sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sidoo kale casharo online aad helaysaan Macallin Abqari YouTube channel. aad waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.